سعيد ميرا فارح جيري oo maanta loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Somaliland isla markaasina ka soo baxay xisbiga muxaafidka ee Kulmiye ayaa markii ay doorashadaasi soo dhamaatay waxa uu la hadlay warbaahinta isla markaasina waxa uu ka dareen celiyay guushiisa sidoo kale waxa uu ka hadlay qaabkii ay u dhacday maanta doorashadu waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi runtii waxaan isku yeedhay maanta inaan halkan mahadnaq u mariyo doorashada maanta ka dhacday dalka ee lagu doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada 22 xildhibaanada golaha fadhiyay oo ii sharfay ii gartay igu maamusay inaan ka mid noqdo shirguddoonka cusub ee golaha wakiilada aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantood waxaan kaloo mahadnaqayaa cid kasta oo qayb ka qaadatay inay sidaa u dhacdo doorashadii hufnayd ee daha furayd ugu horeeyo xukuumadda gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha hore golaha hore wakiilada xogayaha guud iyo shaqaalihiisa runtii muujiyay daafuraan iyo si cadaalad ah oo cid waliba ay ugu qanacday natiijada ka soo baxday waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadeedii tartamay aan kubadda dhinac ka wada ciyaarinay runtii aan nasiib soo saarin aad baan ugu mahadnaqayaa runtii sida hufan ee geesinimada leh ay tanaasulka u muujiyeen aad baan runtii ugu mahadnaqayaa si gaar ah Umar Jaac Faarax oo ahaa ninkii aanu tartamaynay waan nahay nimaan duyaha ka soo wada jeedno ehelnahay si fiican iyo hambaliyay aan ballan qaaday inaan si wacan wada shaqeyn doono aad baan isagana ugu mahadnaqayaa si gaar ah waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan ballan qaadayaa mas'uuliyadda qaranka ee la saaray la igmaday inaan si hufan gudan doono anigoo kaashanaya gudoomiyahayga iyo gudoomiye ku-xigeenkayga labaad inaan qaranka ugu shaqeyn doono si hufan ka wada shaqeyn doono danta qaranka golaha ururin doono goluhu isku mid noqon doono sidaasaan runtii anaguna ballan qaadayaa allahna ha igu asturo igu soo duceeyo insha Allah bidullah kariim aad baa mar labaad mar saddexaad u mahadsantihiin maxaa ku dhibay isticmaal Samtel si aad u heshid internet xad lahayn macmiil ku shubo internet ama ku hadal si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay helaya abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul geel ari dahab iyo hadiyado kale oo qaaliya haddaba kaga shubo ii dahab xidig hal eber hal afar gees